دعوني أنادي قولا دليلا إذا الليل أرخى علي السدولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhamaan khayraadku xidhan channelkan Axmed Daarqani ku soo dhawaada muuqaal cusub. maanta waxaynu kaga hadli doonaa meeshan Ramadaan iyo aqoon kororsi qaybtiisii 7. waxaynu ku saabsan tahay qaybta badankeed taariikho ku saabsan dhacdooyinkii islaamka. haddaba su'aasha koowaad, dagaalkii Khaybar goorma ayuu dhacay? dagaalkii Khaybar goorma ayuu dhacay? jawaabta koowaad, sanadkii 5aad ee hijriga. jawaabta labaad, sanadkii 7aad ee hijriga. jawaabta saddexaad, sanadkii 9aad ee hijriga. jawaabta afaraad, sanadkii 6aad ee hijriga. لك يا رمضان أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان ده حياتي شمعة. jawaabta saxda ahi waa sanadkii 7aad ee hijriga. su'aasha labaad, dagaalkii Khandaq kumuu ahaa saxaabigii keenay khidadii god qodida? dagaalkii Khandaq kumuu ahaa saxaabigii keenay in la qodo god? jawaabta koowaad, Xamza. jawaabta labaad, Cumar ibn Khattab. jawaabta saddexaad, Salmaan al-Farisi. jawaabta afaraad, Abu Bakar. حلى أوقاتي يا رب صلاتي تقبلها طول ما أحلى حجابي جمل أوقاتي وزي صحباتي. jawaabta saxda ahi waa Salmaan al-Farisi. su'aasha saddexaad, ciidankii muslimiinta ee furtay Maka imisa ayay ahaayeen? jawaabta koowaad, ku dhawaad 10,000. jawaabta labaad, 30,000. jawaabta saddexaad, 5,000. jawaabta afaraad, 25,000. من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشنا ورود. لا 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 لا. jawaabta saxda ahi waa ku dhawaad 10,000. su'aasha afraad, dagaalkii Badr meeqa muslimiin ayaa ku dhimatay? jawaabta koowaad, 11. jawaabta labaad, 200. jawaabta saddexaad, 20. jawaabta afaraad, 14. تقبلها عطول رمضان ده رحمة من ربنا النعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. jawaabta saxda ahi waa 14. su'aasha sanaad, waa dagaalkii ugu horreeyay ee uu Khaalid ku hogaamiyey ciidan muslim ah? jawaabta koowaad, dagaalkii Khandaq. jawaabta labaad, dagaalkii Xunayn. jawaabta saddexaad, dagaalkii Mu'ta. jawaabta afaraad, dagaaladii Riddada. عايزين عطول رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول رمضان ده jawaabta saxda ahi waa dagaalkii Mu'ta. waa dagaalkii ugu horreeyay ee uu Khaalid ibn Waliid ku hogaamiyo ciidan muslima. waa dagaalkii ugu horreeyay ee ay dad asal ah oo dadkii Ruum ah ay kaga soo horjeestaan asxaabadii. waana dagaalkii lagu dilay 3 nin ee uu Nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay inay amiirka noqdaan, balse 3doodii la dilay, sidaasna uu ku noqday Khaalid ibn Waliid hogaamiyihii ciidanka xilligaas. intaas ayayna waqtay muuqaalkeena maantay. inta ugu kulmi doona mowduucan la mid ah waxaan idinkaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.